tubtiyo tilmaamay rasuul ninku toosay tamarke tawaabo allahu talade nakayeertu tawfiiqe munaasabadan oo admisar sare loo soo agaasimay isla markaasna ay ku qalin jebinayeen arday dhamaystay guud ahaan quraanka kariimka ah kuwa dhamaystay 15 juz ee quraanka kuwa dhamaystay 10 juz 5 juz 2 juz iyo halka juz ee quraanka kariimka ah ayaa lagu qabtay xarunta madrasada Nuurul Ayn oo ku taala magaalada Daarusalaam ee dalka Tanzania. Munaasabada waxaa ka soo qayb galay culimo, waalidiin, arday iyo qaybaha kale ee bulshada. ugu horreyn ardayda waxaa lagu imtixaanay oo la weydiinayay su'aalo toos oo ku saabsan qaybo ka mid ah quraanka kariimka ah ee qolka Eebe waxaana ardayda ay ku akhrinayeen cod macaan oo tajwiid lagu dheehay. inna arsalna nuuhan ila qawmihi an andir qawmaka min qabli an ya'tiyahum 'adabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. mid ka mid ah waalidiinta ka soo qayb galay munaasabada ayaa u mahadceliyay maamulka iyo macallimiinta markaska Nuurul Ayn ee magaalada Daarusalaam dalka Tanzania. anoo magacooda ku hadlahaya aad baa ugu mahadcelinaya waana ku faraxsanahay ka soo qaybgalayaasha waalidiinta hadaanu nahay sida quruxda badan xafladda ee u dhacday sida quruxda badan ee caruurteena maanta aad ma sha Allah ee quraanku ay noogu akhriyeen ilaahay waxa ka baryeena macallimiinteena iyo culimadeena ilaahay jazaakumullahu khayr inuu ilaahay khayr badan siiyo caruurteedana caruurta ilaahay quraanka inuu fahansiiyo fahanka quraankana ilaahay inuu ku weyneeyo qalbigooda إن شاء الله والدينتنا دمان ومحسنتين إذنكنا. أستاذ عبد الوهاب معلنك قعنت كوها يا أرضيدا أي فاين كبحيي أرضيدا يوحيابي أي برتين حفلته وحي أهيد مارتي مهد علم يدعو يومحوها المها مارتين ولا بأنت قاري وجس هلك جس يلا بدا جس سدح إلا صدمك المهر هو حاجر ومره القرآن كدميي أو هدنا هذا كعليي جس سمتون هذا مرهيان مركل لباد قارنا توم بي مرهيان قارنا تضب بي مرهيان قارنا سيديد واسود حجران marka insha Allah jazakallahu khayr baan leenahay. ugu dambeyntii Sheekh Cabdullaahi Maxamed Mursal
oo ah aasaasaha markaska ayaa dardaaran iyo dhiirigelin halkaas ka soo jeediyey. macallinkii waalidku isku xirnaadaan ilmihii macallinka wax baraya qalbigiisa uu ku fiyoobaado oo u duceeyo taas wax lagu baranaya taasna hal la fiiriyo Soomaalida hore waad garanaysaa sida diinta lagu baran jiray sida macallinka markii dugsiga ilmaha kiciyo boqolkiiba 90 way quraanka way baran jireen sababtoo ah waalidkan niyad oo ilmihiisa inay wax bartaan ayuu lahaa macallinkan niyad bay ka ahayd waalidku wuxuu ku dadaalay macallinkan ilmahan inuu duceeyo sidooda macallinka waxaan maqli jiray odayaasha ka maqli jiray macallinka diinkiisa ducadiisa ka fiican haddii uu duceeyo inuu hadhow wax baranaya mar dambe wax iska baranayaaba laakiin hadduu ka qalbo xumeed albaabka barashada oo dhan ba ka xilmayo waxa baranayo taas la ogaado macallinka inuu raali noqdo la rabo markasta cunug hada geedi baa ku soo galay guuraysa inaad iska dhaqaajisid ma aha macallinka waa inaad raali gelisaa asagoo fasaxay aruurtii waa inaad ka meesha ka wareejisaa waad wadaysaa ku kala ogeynaysaa ka kala laba beri waa ka kaxaynaysaa aruurtii wajih wareerisay waxba fahmi maayaan marka dambe xaaladaha noocaasaan hal iska daayo hal la didaalo aruurtii in diinta la fahansiyo hal lagu didaalo kuwaas hadhow adiga dhalay ku anfacaya annagana anfacaya macallimiinta anfacaya muslimiinta oo dhan anfacay marka insha Allah dardaarankayga kaas weeye madrasada Nuurul Ayn ayaa wada howlo muhiim ah oo khidmada diinta islaamka iyadoo soo saartay jiilal barta Quraanka Kariimka iyo qaybo kamid ah hordhaca funuunta diinta islaamka.